الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الأخيار، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxaynu ka soo hadalnay duruustii hore ama muxaadaraadkii hore sida qofka mu'minka ahi uu u dhisayo qalbigiisa iyo farqiga lagu kala garan karo qalbiga caafimaadka qaba iyo qalbiga xanuunsanaya. qalbigaasi kolka uu hagaago sifaadkiisii wanaagsanaa ee baatiniga ahaana qofka ay kor noqdaan, wuxuu noqonayaa waliyan min awliyaa illah, awliyada ilaah. awliyada ilaahay sidee lagu noqon karaa? wadadeese loo maraa? maxaase lagu helaa? waxaa sharxaya xadiid ka sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam, saxiixa ku sugan, marar badan maqasheen, loo yaqaano xadiidulwali, xadiidka weliga ka sheekeeya. awliyada waxa laga yaaba soomaalida wuxuuna u yaqaanaa qolo aasan oo qarniyo jiray, laakiin weligu sida qur-aanka ilaahay oo ku tilmaamay waxa weeye qofka iimaaniya alla ka cabsi laga helo, aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. awliyada ilaahay waxaa u sarreeya ambiyada iyo malaa'igta, waxaa ku xiga mu'miniinta siday u kala iimaan wen yihiin, ay u kala camal iyo cibaado badan yihiin. alwilaaya waxaa lagu helo waxaa sharxaya xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo wadada loo maro. wa kullunaa yuxibu an yakuuna waliyan lilah, mid walba inaga midiba wuxuu u cibaadaysanaya oo u dadaalaya inuu noqdo weli awliyada ilaahay ka mida. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay xadiidka qudsi buu ilaahay ka warinay, waa xadiidka aynu khudbadayna ku sharxay. waxa uu nabigu leeyahay ilaahay baa hadlayo waxa ui man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb. weli aan leeyahay qofka la colaatamo awliyadayda ka mida dagaal baan ogeysiiyey. halkan iyo baabka ribada labadaasuu ilaahay cid gaf gashay inuu la dagaalamayo ogeysiiyey. dadka riba cunayaasha ana ilaahay inuu la dagaalamayu sheegay, weliga ilaahay qofka la dagaalamaya inuu ilaahay la dagaalamayu sheegay. xarbigu ogeysiiyey qofka dhiba qowl iyo ficil mid kastabaa ku dhiba. waxa wilaayo lagu yeelanayo ee qofku weliga uu ku noqonayo ayaa markaa xadiidka qudsigani uu tilmaamaya. waxaa uu soo horeeya faradkii oo uu gudanayo qofka, wamaa yataqarabu ilaya cabdii bishayin axaba ilay mima iftaradtu calayh. waxa aan ugu jecelahay ee addoonku uu igu soo dhawaado weli ku noqdo, ile markastuu cibaadada sii badiyo wilaayada ilahay uu sii badan, ilahay buu sii dhawaanaya. ilaahay fii jiwaari illaah ayuu ilaahay buu sii dhawaanaya. mar kasta oo qofku waxa ugu jecelahu igu soo dhawaada waa farad, waxaan ku waajibiyey ayaa uu leeyahay subxaana wa tacala xadiidka qudsiga. faradkaa marka uu dhammaystiro wilaayadiisii waxay kusii kobcaysaa sunnayaasha. wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba. addoonku markastuu sunnaha badiyo wuu soo dhawaanaya wuu sii dalacaya ilaa aan jeclaado. inuu ilaahay ku jeclaadaana waxaynu ilaahay u jecella waa inuu ina jeclaado, jacaylkiisa kiisaynu ku gaadhay markaynu isaga jecela. fa idaa axbabtu, markuu haddaba wilaayada qofkii heer sare gaara muxuu noqonay? markaan jeclaada bu lahay waxaa noqonayaa maqalkii uu wax ku maqlay, araguu wax ku arkay, waxqabadkii gacan, socodkii lugta u dhaartay lahaa. wuxu uhi walaa in sa'alanii la uctiyan. haddii uu wallaahi isku dhaartay lahay hadduu wax weydiisto waan siin doonaa, hadduu wax iga magan galana waan ka difaaci doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala inuu weligiisaasi ka taagan yahay isagoo tilmaamaya wuxuu yidhi shayga aan fulinayo waxa aan karhaa ama ka noqnoqdaa ka qaadidda mu'minka weligaa ilaahay aan ka qaadaya nafta. shay aan kollayba fulinayo haddana ka hakado ka joogsado waa nafta mu'minkan qaadayaba ilahay wey. weligaas taraddudii can qabdi nafsi cabdi lmu'min. sababtu waa yakrahu lmowt wa ana akrahu masaa'at. ilahay wuxu uhi weligani geeri u nacaya, nafta laga qaadayo kala haysanaya ka naxaya. rususha u mooyaane dadka kale lama sii ogeysiin jira. haddii qofka la ogeysiiyo awoodda xamilkaa ku adkaanaya. marka geeridaa u nacayo
ayaan aniguna wixii isaga dhibaya baa dhacaya ilaahay subxaana wa tacaala halkaas uu ka taagan yahay qofka weliga ilaahay ee addoonka dhabtaa ilaahay u noqdo weligaasi sifooyinka uu leeyahay waxaa ka mid a markay culimadu sharxayaan tu badan bay ku sharxaan wilaayadiisa astaamaheeda waxaa ka mid a mujaabu dacwa ducadiisa la aqbalo sidaynu ku arki doono kalaamaadka awliyadu ay leeyihiin wuxuu astaamihiisa ka mid a wixii ilaahay u qadaray oo raalligu ku yahay xaalad walba waa raalli lama arko qof kaloo ilaahay u cadhaysan oo hiifaya ilaahay faralkiisuu fulinaya wuxuu ilaahay ka xaaraantinimeeye faraha lama galo lama fududaa dadku waxay in fara badan nafta duldhigaan ee adduunyo iyo ururinteeda iyo dhadhankeeda isaga kuma badna wax yar marka uu helo wuu ku sabraa wax badan markuu helona wuu ku mahadnaqaa waxaa astaamihiisa ka mid a yastawi cindahu lmadxu waddam in la eedeeyo haddii la ammaano waa isugu mid ilaahay wuu iska dhisayaa isha ilaahay weegaa marka ilaahay wax u kordhiyo kibiruma kordhise wuu isa sii gaabiyaa akhlaaqdiisaa wanaagsan saaxiibtinimadiisu way fiicanta dulqaadkiisuna wuu baday qofku markuu astaamahaa yeesho heerkaa uu gaadhay isha ilaahay uu iska egaya isha makhluuqu aanay qiimalo lahayn iyo egmadooda waxa uu yeeshaa oo lagu arkaa shay loo yaqaano khawaarim lilcaadaat wax dhaqanka ummadda layaab u ah oo cajaa'ib